waxaa jira jadwal uu Rabbi inoo dejiyay tabaaraka wa tacaala jadwalkaasoo ah jadwalka salaada inaasha salaadood ayuu nagu faadiyay shanta salaadood qaabka u dejisan yihiin haddaad u fiirsato waa qaab xikmadaysan subax haddaan ka bilowno waqtiga subax hore intaan caado soo bixin qofka toosa caafimaadkiisu taam buu noqdaa intaan caado soo bixin qofka caado ka hor toosa waqtiyada eedaanka ilaa qiimka qofka toosa caafimaadkiisu cajiib buu noqdaa faa'iidada kale ku jirta waxay tahay ma habsaamayo oo hadduu shaqo tagayay shaqadiisii goor hore u gaadhay hadhow duhurka markuu soo rooxo qofkii isagoo maanta dhan soo shaqaynayay maanta dhan daalanaa markuu hadhow yimaado nasashu u baahan yahay oo inuu markaa weysaysto oo boodhkii wax kasoo iska maydhaya kadibna halkaa nasashu ka helaya markaa weysadu iyaduna waa dawo qofkina wuu ku tegaya oo naftiisa baa degaysa oo jidhkiisa qaboobaya way ka khayr badan tahay in qofku iska maydhmaydho markuu laakiin weysaysto baraka fara badan ayuu ka helaya salaadana wuxuu ku ilaabayaa dhibkii maanta soo qabsaday markuu iyadana tooso isagoo uu shaqo tagayaa haddaan shaqo tagayna magaalada galaya markaana waa inuu sii maydhmaydho waa weysadii maxaa hadhay salaadii maqrib cawdhan markuu suuqa ku jiro uu hadhow guriga waa jacalna leyla libaasa waa jacalna nahaara macaashan baa la yidhi markuu habeenka soo haroodo waa inuu dee dhaska kusoo duulay iyo wax kastoo dhib u soo gaadhay waa inuu haddana ka maydhmaydho waa weysaysanayaa salaadii cishaha ayaa iyaduna timi qofkii wuu casheeyey in badxoogaa wiira caweeyey wuu casheeyey waa inuu salaadii cisho u weysaysto kadibna markuu tukado seexdo isagoo isa qaba waa jadwal rabbaaniya oo ilaahay dejiye